Votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à l'institution et c'est un réel plaisir de vous souhaiter à tous. joogitaankiina halkan waxa aan ka marag furamayaa ahamiyadda aad siinaysaan hay-addani waxaa farxad iya inaan soo dhoweyn wanaagsan idiin rajeeyo dhammaantiin laga bilaabo maarso sanadkii 1976 ilaa iyo 26 juun 1977 telefishinka qaranka Djibouti waxaa ka soo gali jiray barnaamijyada idaacadda Faransiiska ee FR3 Djibouti waxaana uu ka koobnaa oo kaliya saacado barnaamijyo Faransiisa oo madow iyo cadaan ah ay ka bixi jireen iyo warar kooban oo afka Faransiiska lagu akhrin jiray xilligaas inkastoo dalkeenu uu joogay waxaynu qasab ku ahayn inaan ku dayano Faransiiska aynu sidaasi aan ku cabursanaano rabitaankeena iyo waxaan eegsanayno oo hayd xorriyad walow aynu u dhalanay inaan xor ahaano amba xornimo aan helno FR3 Djibouti waxaynu ka dhaxalnay oo kaliya hal baatimo oo ay ku yaaleen istuudiyaha raadiyaha iyo telefishinka qaranka agaasimka maamulka xafiisyada farsamada iyo kuwa kontroolka ay maatarada maanta aragtida waynu ka ballaaranahay waxaynu leenahay xarun wax soo saarka maqaalka iyo muuqaalka istuudiyaha warka laga akhriyo daarta maamulka xarunta layliska ambalaliska ee telefishinka qaranka RTD iyo qaar kale oo badan ayaa si hubaal u muuqda saxada hawada ay ku jiraan raadiyaha telefishinka qaranka ayaa si hubaala u kordhay waxaana uu yeelay telefishinka qaranka amba uu yeeshay inuu socdo 24 saacadood RTD waxay sidoo kale ku talaabsatay isticmaalka aaladda casriga ee TNT anagoo ka soo gudubnay aaladii hore ee analogiga mar waliba RTD waxay ku raad joogtaa isbedelka waayo waxa ay leedahay muuqaalo dhinaca teknolojiyadda cusub oo aynu wax walba xilligani joogno telefishinka qaranka mustaqbal wanaagsan u adeegsanayo adiga oo ka daawan karaya smartphone iPhone iPad-kaaga iyo waliba tablet nibrigaaga adiga oo gurigaaga jooga amba xafiiskaaga shaqo amba meel kaste xuska sanad guurada 27 Juun mar waliba waxaa la abaal mariyaa shaqaalaha RTD-da sida ay uga qayb qaataan isla markaasina hawlkarnimada ay muujiyaan xafladaasi awgeed waxaa kaloo xusid mudan in marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Marwo Khadra Maxamuud Xayd ay si gaar ah ugu qaban qaabisa haweenka warbaahinta munaasabada dabaaldega xuska maalinta caalamiga ee 8 Maarso sanadkii 2010 sanadihii ugu dambeeyay RTD waxay ka faa'iideysatay taageerada joogtada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd ay u muujiyeen sidaas darteed aniga oo ku hadlaya magaca shaqaalaha RTD waxaan u mahad celinayaa si kal iyo laaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwada koowaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayd waxaan leeyahay waad mahadsantihiin